ninka cali wajiis la leeyahay maalmahan waa la haystaa waa lagu dhagan yahay anna waxay iga taagan tahay halkaan rabay roob ma igu daa ninka waa rabay maalin maalmaha ka mid ah sidaa inay dadka indhahooda u wada qabtaan keligiis maahan nimankan majmaca culimada la baxay ee ictisaam sheegtay ee wadaadada sheegtay ee fadwada anigu aan fahmi waaye meesha la fadhiya muddo badan bay qarannimadeena hagardaamo ku hayaan kala qaybsanaanta bulshada iyagaa asal u ah waana idiin sheegaya caddaynta ninkan la leeyahay sheekh cali wajiis ee aad arkaysaan mar isagoo oday beeleed ah ee mar aad isleedahay waa qabqable ee mar aad isleedahay waa siyaasi ee mar aad isleedahay waa sheekh culamo iyo caamo wuxuu yahay aadan mar kale garanayn ee midabada badan baan rabaa inaan idinkaga warramo anigu qof gooniya kuma soo dhigo laakiin ninkan waxaan uga baqay dalka qarannimadan uga baqay xeerarka dalka u yaallo isagay ka saldhigi laayihiin keligiisna ma ahane waa culimadan ictisaamka nimankan la baxay ee waxa weeyaan majmaca culimada la baxay ee anigu cidda boqortayba aan garan waayey ee xoogga ku haysta dowladnimada war nin kasta oo la doorto xukuumad kasta oo dhalata iyagaa jeebka ku rita waxaana kaloo fahmi waayey nimankan cid iska ceyrida oo dalka uga nasteexayda waa waaye mid kasta oo yimaado waa jecel yahay halkaas buu ku haystaa sababtuna waxay tahay baan is yidhi haddii aan baaray ummadda ka soo horjeeda ayuu dhiiggooda u banneeyaa hadda ninkaa cali wajiis la leeyahay shalay nimankii badbaado qaran iyo xasan sheekhan laftiisa waman lam yandafic fasaadan fil ardi illaa bilqatli qutilow lahaa dhiiggooda u bannaynay maantana iyagii buu leeyahay haddana ummaddii ka soo horjeeda dhiiggooda u bannaynaya war diinta ilaahay waa mid ma leexleexato mana laablaabato cali wajiis oo adiga tiro badan anuu raggii dhintay iyo baarid gurxan wax ka sheegi maayo laakiin kuwiina hadda jooga khatar baa dalka ku tihin in laydin kala diraad u baahan tihin waxaan horta iyo awal marka hore annaga noo sharciyey war nimankana waa masiibo hadda cali wajiiskan meeqa maraad aragteen isagoo codadkiisa lasoo qarxiyey mar qabiil buu u shirbayaa oo waa oday qabiil mar waxa weeye waa siyaasi mar culimuu sheeganaya wadaaddo u dhex fadhiyaaho waxbaan fadwoonayaahuu leeyahy dan adduunyay leeyihiin dhaqaalay rabaan waa la ogyahay dee maalmahana waad maqlaydeen oo aad buu miidiyaha warkiisu ugu soo batay dad eshtaka ka ah oo leh hadda ka hor bu wuxuu yidhi qabiil dhan oo kamid a qabaa'ilka soomaalida dhiiggooda waa bannaan yahay in la dhacaana way bannaanta oo hantidooduna way bannaanta xaguu ka keena waxaas diinta qabto oona culimmada kale aanaan ka maqal oo annagu aana weligan maqlin oo cali wajiis keligiis yaqaano maxay tahay war hadda ninkan cali wajiisa ee nimankii badbaado qaran ee halgamayaasha dadku u yaqaanaan shalay farmaajo u bannaynayay dhiiggooda oo aan la gambanayn oo miidiyaha la taagnaa maantana xasan dadka dhiiggooda u bannaynaya mar waxa weeyaan haddana ciidamada gelaya mar codod laga soo qarxinayo isagoo qabiil soomaaliya caynaya maxaad ka wadda haddii la yidhaana leh waxa weeye reer baan gaar ula hadlayayo codkaasi saas waxaan macno lahayn isku difaacaya ee haddana laleeyahay waa xaakim soomaaliyeed